Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka oo aan ku soo qaadan doono hay'adda sirdoonka militariga ee Ukraine oo sheegtay in cutub ka tirsan ciidamada gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi uu bilaabay in la geeyo galbeedka Ruushka isla mar ahaantaana la filayo in lagu qalabeeyo 120 gantaal oo nooca balastiga ah iyo 6 gaari oo laga gano gantaalada kuwaas oo loo adeegsan doono weeraro ka dhan ah Ukraine. Haddaba maxay ahaayeen gantaaladan cusub oo Kuuriyada Waqooyi mar kale lagu arkay? Miyay gantaalada Kuuriyada Waqooyi ay ka waaweyn yihiin kuwa Ruushka? Sidoo kale barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa Xuutiyiinta Yemen ee Iiraan ay taageerto ayaa Arbacadan sheegay in weerar gantaalo ah ay ku qaadeen markab shidaal oo Sacuudigu leeyahay kaas oo marayay meel ka baxsan xeebaha magaalada dekedda ah ee Yanbu oo ku taala xeebta badda cas ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. Iyo Donald Trump oo sheegay in maamulkiisa uu wado wadahadal aad u wanaagsan ay la yeesheen Iiraan intii lagu guda jiray wadaxaajoodyo maalin dhan socday oo dhacay Talaadadii. Arrintaas oo sii xoojisay baa la yiri rajada laga qabo in dhawaan la soo afjaro colaadda 5 bilood jirsatay. Guud ahaan dhacdooyinkaas oo idil ayaan mid u dul istaagi doonaa daqiiqadaha soo socda intaan ku guda jirno tabinteena. Ha yeeshee daawada waxaan kaa codsanayaa muuqaalka like noo saar, la wadaag asxaabtaada. Haddii aadan ka mid ahayn bahdeena fadlan nagu soo bir oo ka mid noqo bahdeena Hoggaan Media, ka qayb qaado kor u kaca channelka. Taariikhdu waa 5 Agoosto sanada 2026. Magacaygu waa Hashim. Ku soo dhawow mar kale barnaamijka dhacdooyinka caalamka. Aynu ku bilownay sarkaal ka tirsan hay'adda sirdoonka militariga ee Ukraine ayaa sheegay in cutub ka tirsan ciidamada gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi uu bilaabay in la geeyo galbeedka Ruushka isla markaana la filayo in lagu qalabeeyo 120 gantaal oo nooca balastiga ah iyo 6 gaari oo laga gano gantaalada kuwaas oo loo adeegsan doono weeraro ka dhan ah Ukraine. Haddaba Ukraine waxay si weyn ugu liidataa nidaamyada casriga ah ee difaaca cirka, arrintaas oo Ruushka markuu isku dayayo in uu ka faa'iideysto isagoo kordhinaya adeegsiga gantaalada balastiga ah. Gantaaladan ayaa aad uga adag baa la yiri in la soo rido marka loo eego noocyada kale ee gantaalada. Tan iyo marka dabayaaqadii sanadkii 2023 Ruushku wuxuu Ukraine ku weeraray baa la yiri 10 gantaal oo balastig ah oo ay soo saartay Kuuriyada Waqooyi. Hase yeeshee haddii ciidamo gantaalo ku takhasusay oo Kuuriyada Waqooyi ah si rasmi ah loogu daabulo Ruushka, waxay taasi noqonaysaa ballaarin cusub oo ku saabsan iskaashiga militariga ee durba xooga u dhaxeeya ee Moscow iyo Pyongyang. Andriy Cherniak oo ka tirsan agaasinka guud ee sirdoonka militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu qorsheynayo in cutub ka tirsan oo ka kooban ku dhawaad 90 askari oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi la dejiyo gobolka Voronezh ee galbeedka Ruushka, halkaas oo ay ku biiri doonaan baa la yiri guutada 112aad ee gantaalada. Haddaba maxay ahaayeen gantaaladan cusub ee Kuuriyada Waqooyi mar kale lagu arkay? Cherniak wuxuu sheegay in Pyongyang ay Ruushka u dirtay 40 gantaal oo cusub oo noocyada KN-23 iyo KN-24 ah iyo sidoo kale shaqaale military. Si kastaba ahaatee, marka qaabka rasmiga ah ee loo daabulayo tirada ugu dambeysay ee gantaalada ayaa lagu go'aamin doonaa baa la yiri wadahadalo heer sare ah oo bisha soo socota dhici doono. Sida uu sheegay, Ruushku wuxuu filayaa in howlgalkan uu ku lug yeesho 120 gantaal oo balastiga ah iyo 6 qalab oo laga gano gantaalada. Waayahay, ilaa iyo hadda si cad looma oga baa la yiri doorka saxda ah ciidamada Kuuriyada Waqooyi ay ka qaadan doonaan howlgallada gantaalada ee Ruushka. Macluumaadka uu bixiyay Cherniak wuxuu ku soo beegmay baa la yiri xilli toddobaadkii hore Ruushku uu markiisii ugu horeysay tan iyo Agoosto 2025 ku weeraray Ukraine 2 gantaal oo balastig ah oo ay samaysay Kuuriyada Waqooyi. Rob Lee oo ah cilmi baaris sare oo ka tirsan Macadka Cilmi Baarista Siyaasadda Dibadda ama afka qalaad lagu yiraahdo Foreign Policy Research Institute ee magaalada Philadelphia ayaa sheegay in taageerada militariga ee Kuuriyada Waqooyi ay khatar weyn ku tahay Kiev. Waa run in difaaca gantaalada balastiga uu yahay mid ka mid ah meelaha ugu nugul ee Ukraine. Sidaas darteed, kororka tirada gantaalada noocan ah ee ay wajahaan wuxuu sii adkeynayaa difaacooda, ayuu yiri. Wuxuu intaa ku daray in walaaca ugu weyn uu yahay xaaladda difaaca cirka ee Ukraine xilliga jiilaalka soo socda, maadaama Ruushka mar kale uu beegsan karo baa la yiri shabakadaha sidii uu sameeyay sanadihii hore. Haddaba wakaaladda wararka ee Reuters si madax bannaan uma xaqiijin karin baa la yiri sheegashooyinka Cherniak, maadaama uu sheegay in xogtiisa ay ku saleysan tahay sirdoon aan la shaacin karin sababo la xiriira xasaasiyadda arrintan.
waaya wasaaradda difaaca ee Ruushka iyo safaaradda Kuuriyada Waqooyi ee qaramada midoobay ee magaalada New York ayaan isla markiiba ka jawaabin codsiyo qoraal ah oo laga dalbaday faallo. Tan iyo markii Ruushka qaaday duulaankii balaarnaa ee Ukraine sanadii 2022, Kuuriyada Waqooyi waxay noqotay baalyari xulufo dhow oo Moscow leh labada dal, waxayna sidoo kale sanadii 2024 kala saxiixdeen heshiis iskaashi oo difaac oo wadajir ah. Sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine, Kuuriyada Waqooyi waxay Ruushka siisay baalyari malaayiin madfac oo madaafiic ah, waxayna sidoo kale u dirtay 14,000 askari gobolka Kursk sanadii 2024 si ay uga qayb qaataan dib u celinta weerar dhulka ah oo ay ciidamada Ukraine halkaasi ay ka qaadaan. Toddobaadkii hore marka mas'uuliyiinta Ukraine waxay sheegeen in gantaal ay sameysay Kuuriyada Waqooyi uu burburiyay guri ku yaala tuulada Ratshan ee bartamaha Ukraine, halkaas oo ugu yaraan 5 xubnood oo isku qoys ah ay ku dhinteen. Haddaba miyay gantaalada Kuuriyada Waqooyi ay ka waaweyn yihiin kuwa Ruushka? Chernaik wuxuu sheegay in weerarkii toddobaadkii hore uu ahaa kii ugu horreeyay ee la diiwaangeliyo iyadoo la adeegsanayo gantaalo balaastig ah oo Kuuriyada Waqooyi ay sameysay tan iyo Agoosto 2025. Wuxuuna sidoo kale xaqiijiyay warbixin hore oo Reuters daawacday oo ahayd in weerarkaasi uu ka tirsanaa 40 gantaal ee cusub. Sida ay sheegeen markii ilo military ah oo Ukraine ah, gantaalada KN-23 iyo KN-24 waxay leeyihiin baalyari masaafo dheer iyo awood ay ku qaadaan madaxyo qaraxyo oo ka culus kuwa gantaalada Iskandarka ee Ruushka. Waayahay, haddii aan eegno qodobka xiga, Xuutiyiinta Yemen ee Iiraan ay taageerto ayaa Arbacadan sheegay in weerar gantaalo ay ku qaadeen markab shidaal oo Sacuudigu leeyahay, kaas oo marayay meel ka baxsan xeebaha magaalada dekedda ah ee Yanbu oo ku taalla xeebta Badda Cas ee boqortooyada Sacuudiga. Haddaba mas'uuliyiinta Sacuudiga ayaa isla markiiba ka jawaabeen codsi loogu dalbaday in faallo ay ka bixiyaan dhacdadan. Afhayeenka militariga Xuutiyiinta Yaxya Sarea ma uusan sheegin waqtiga saxda ah ee weerarka uu dhacay. Waayahay, haddii aan eegno qodobka kale ee xiga, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisu uu wado wadahadallo aad u wanaagsan lala yeeshay Iiraan intii lagu guda jiray wadaxaajoodyo maalin dhan socday oo dhacay Talaadadii, arrintaasna oo sii xoojisay baalyari rajada laga qabo in dhowaan la soo afjaro colaadda 5 bilood jirsatay. Qiimaha shidaalka ayaa hoos u dhacay, halka suuqyada saamiyaduhuna ay sare u kaceen intii lagu guda jiray ganacsiga Asia Arbacadii. Tan waxay timid baalyari kadib markii suuqyada Wall Street ay gaareen heerarkoodii ugu sareeyay, iyadoo maalgashayaashuna rajo ay ka muujiyeen in heshiis dhowaan la gaari karo oo dib loo furi karo isu socodka maraakiibta ee maranbiyoodka Hormuz, kaas oo xanibnaa. Waxayna sheegeen wadaxaajoodyada socday maalintii oo dhan, ayuu Trump u sheegay barnaamijka Night ee Fox News. Wuxuuna intaa ku daray, maranbiyoodka Hormuz si dhaqsi leh ayaa dib loogu furi doonaa haddii ay mar kale ka baxaan heshiiska, waxayna la kulmi doonaan weeraro aad u culus, ayuu yiri. Trump ayaa marar badan hore ugu hanjabay Iiraan inuu ku qaadi doono duqeymo baaxad leh haddii aan heshiis la gaarin, isla markaana wuxuu dhowr jeer sheegay in ay socdaan horumarro dhinacyada wadahadallada ah, inkastoo ilaa iyo hadda aysan ku guuleysan in ay soo afjaraan colaadan. Warbixinta Axios oo soo xiganaysa 2 ilo oo gobolka ah iyo sarkaal Mareykan ayaa sheegtay in Mareykanka iyo Iiraan ay ku dhow yihiin inay gaaraan heshiis ku meel gaar ah oo dib loogu furayo maranbiyoodka Hormuz, iyadoo Cumaan ay ogolaatay baalyari qorshahaas maadaama ay qayb ka maamusho maranbiyoodka. Warbixintu waxay sheegtay in Washington ay rajaynayso in heshiis rasmi ah loogu dhawaaqo Arbacadan. Hase yeeshee, warbaahinta dowladda Iiraan ayaa iyadoo soo xiganaysa ilo xog ogaal ah sheegtay in heshiiska lala galayo Cumaan ee ku saabsan Hormuz uu dib u dhacay intii Mareykanka uu sii waday hanjabaadaha uu u jeedinayo Iiraan. Haddaba sidoo kale Qatar waxay sheegtay in horumar laga sameeyay wadahadallada. Trump weli ma uusan xaqiijinin himilooyinkii uu ku dhawaaqay bilowgii dagaalka, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen 1. in gabi ahaanba la burburiyo barnaamijka nukliyeerka Iiraan, 2. in la wiiqo awoodda Iiraan ay ku weerari karto dalalka ay gobolka ku loolamayaan ama ay ku loolamaan, iyo 3. in la burburiyo xaalad horseedi karta in shacabka Iiraan ay xukunka ka tuuraan hoggaanka diimeed ee dalka. Dhanka kale, Iiraan waxay hakisay inta badan isu socodkii maraakiibta ee maranbiyoodka Hormuz, halka Mareykankuna uu weli sii wado cunaqabateynta iyo xanibaadaha maraakiibta iyo dekedaha lala xiriiriyo Iiraan. Qatar waxay horey u sheegtay in dhexdhexaadiyaashu ay horumar ka sameeyeen dadaalo lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda, inkastoo Tehran ay markii hore
ay beenisay in wadahadallo rasmi ay socdaan. Halka aad nagala socotaan waa channelkeena Hoggaan Media oo idinla socodsiinaya qodobada maanta anigoo ah Hashim. Waan kaaga mahadcelinayaa la socodka iyo daawashada muuqaalkayaga. Fadlan hanaga hilmaamin muuqaalka inaad like noo saarto, la wadaag asxaabtaada, aragtidaadana qaybta hoose ee faallooyinka waa noogu reebi kartaa. Tan iyo intaan barnaamijkeena xiga ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.